waxaan ku suganahay beerta xamar ee magaalada Muqdisho waxaana maanta ka qayb galayaa bandhig farshaxanku waa qayb muhiim ah oo kamid ah hal abuurka bini'aadamku uu soo kordhiyay gudbiya sida la sheego sawirku waxa uu dhigmaa kun eray taas waxay muujinaysaa muhiimadda uu leeyahay waxaan doonayaa inaan ka qayb galo bandhig maanta uu qabanayo farshaxaniistaha weyn Maslax Artist oo ka dhacaya beerta xamar haddaba si aan u aragno goobta lagu soo bandhigay iyo sida ay dadku uga mahad celinayaan bandhigan qiimaha badan aan soo aragno waxaa kamid ah farshaxaniistayaasha ku soo bandhigay da'da yar Cabdiraxmaan oo farshaxan la yaab leh ku soo bandhigay halka sida arkaysaan waa dhiil halkan waxa arkaysaan geed iyo background qurux badan oo uu sameeyay Cabdiraxmaan ayaa la jooga waan ka wareysan doonaa sida uu sameeyay farshaxanka la yaab kale asagoo inta waliba aad u da'yar Cabdiraxmaan soo dhaw fiican maxaa ku dhaliyay inaad sawir noocaan ah أنتي معنكي هودي ولا شيء أبي أيودي رجلينا وحن يناسبه هاي ميقا كو قادت إنا صور نوعانا ليش أنا كل أسميست أو رسالة أورنجيست أقر حسيت ميقا كو قادت 10 دقيقة هاي بدنا مجعسة إنا وحصورتد مستقبلك مركز ويناتد محارتها إنا نقطت سي معنكي مصلح أرتس إنا نقضي عمل وحكمتها أرض مصلح أرتس سو أفلاح دمية أو أخبرت هاي أرتسك marka guriga joogtid oo kale firaaqada tahay oo kale inta gam ciyaar leed waxba sawirtaa miya ana ku ka fiican sawira ay dhalinyarada adiga kula midka ama da'yarta maxaa u sheegaysaa waxa diilaa inay si fiican wax u bartaan ee mustaqbalkooda gaaraan maxaa doortay inaad sawirto talada sayidka kale oo xilligan ku soo beegto sida wad ogna waxa lagu jiraa isbuuceen oo xurriyadda ee tahay biri kooda luuliyo sidaas darteed talada aad doorto waxa waaye Sayid Cabdulla Xasan xilliga ma joogin oo xurriyadda calanka Soomaaliya la taagay ma soo gaarin laakiin wuxuu kamid ah dadku u halgamay oo heerkan soo gaarsiiyay waa mid kamid ah fariimaha lagu gudbiyo artistka marka ay joogto waana fariin aad u muhiim ah sida uu sheegay artiste Cabdiraxmaan Yuusuf aad iyo ma santa waxaan la joogaa mid kamid ah ardayda maanta ka qalin jabinaysa isla markaana ah artiste Soomaaliyeed oo soo baxaya maxamed waxa uu sameeyay arki kartaan waa hal sida qiyaasayo iyo geedkii iyo deegaankii محمد سلو بعدين waxaa meeshan aad ku qalin jibnay koorso oo noo socotay muddo 2 bilood marka insha Allah koorsooyin kale oo soo socdaan kadib waa si qayb gali doona hadda oo ujeedaan sawirkan sharaxaad badan u baahno waa dream kara kan waxa waay qayb habeen joogo badda liido oo ku baashaalay amees ku sameeyay sketchkiis markaas sameeyay kadib waxa ku sameeyay xaafad aan ku sawiro kan waa dream kartaan waxa waay hal iyo gawar dhaqanka Soomaaliyeed wadato geed yar oo meesha ka muuqdo waay markii inay noqoto artist maxaa ku dhimay wallahi horta wax walba talent waa ma familka keentay ma aabale ma artista ma waagi iskuulka dhiginay hoo yar ku fiicnaan aad yaad waxay la taagan macalinka inuu ka dambeeyay in qabsamo farshaxankan aad ku qiimaha badan macallin Maslax oo kamid ah artistayaasha Soomaaliyeed macallin Maslax soo aad ma adsanahay intiina ka soo muuqdo farxadeen noo tahay ina noo imaadaan maanta halkan waxa ku soo bandhignay bandhig farshaxan oo aad u weyn oo qiimo badan sawirkan aad arkaysaan waa sawirka gudoomiye Cali
asaga ilaahay kasko asaga suurageliyay bandhiga inuu dhaco iyo tiimka beerta xamar oo ayagana mataqaanaa maxaa la dhahaa nasiiyey beertan spacekan aadka u quruxda badan oo maanta dadka aragtay isugu imaadeen kuna soo bandhigan quruxda badan maxay tahay ujeedada ka dambeysay ee loo qabtay bandhigan farshaxan horta bandhiga wuxuu isugu jiraa qalin jabin iyo maxaa la dhahaa soo bandhigid ardaydu wax ay barteen marka sanado ka hor artistka Soomaaliya ama farshaxanka Soomaaliya aad u hooseeyay laakiin hadda waxa moodaa inuu dib u soo kacayo tartiib inuu kor ugu soo kacayo maxaa isleedahay waa ka dambeeyeen wallahi baraarujin iyo maxaa la dhahaa in anaga qayladaan badan aan sameeyno in markii dambana qayladaanteen inta la qaado waaye maxaa la dhahaa dad aan wax barno dadka aan wax barna guryahooda waxay la tageen inay dadkooda wax sii fahansiiyaan taas ayaa ka dambeysay saddex qof oo kale markay wax fahansiiso waxyaabahaas la fahansiinayeen mataqaana wax weyn si noqonayaan marka farshaxanka hadda hooyooyinkii Soomaaliyeed warbaanba inay bartaan dadku waxa u sharaxdaa muhiimadda uu leeyahay farshaxanku si dad badan ugu baraarugsaneen ay wax badan uga fahmaan wallahi artist korto maxaa la dhahaa waa halkii sawira waxaa la dhahaa kun erey fasiri kara sawira hadirtaan mataqaana hortaada yaala ka soo qaad sawirkaas waxbuu ka turjumayaa waxaas ama nabad ha noqdaan ama wax colaad looga hortagayo ha noqdaan sawir wax uu ka turjumayo bulshadana lagu heshiisiin karaa bulshadana mataqaana colaad waa loogu abuuri karaa artist marka waxa wax weyn in badan oo hadal lahayd hal sawir lagu soo koobaya aad u maasantahay macallin maslax oo maanta halkan ku soo bandhigay bandhig farshaxameed aad u muhiimsan oo dad badan ay ka soo qayb galeen Assinado na aquele nosso beijo.